Shan aragti oo ku saabsan jacaylka, sirta cilmi nafsiga, nooca jacayl ee ku haya iyo waxa uu yahay halkan ka ogow. Muxuu dadka u galaa jacayl? Muxuu jacayl qaar u raagaa mid dhaqso u baaba'aa? Dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo baarayaal ayaa soo jeediyey dhowr aragti oo kala duwan oo sharaxaya qaababka jacaylka iyo adkaysigiisa. Jacaylka waa dareen iska caadi ah, balse fahamka sida iyo sababta uu u yimaado way adag tahay in la fahmo. Sida dhabta ah, muddo dheer waxaa la aaminsanaa in jacaylku uu yahay wax fudud, aas-aas ah, mucjiso ah, ayna adag tahay in si buuxda loo fahmo. Afarta arrimood ee soo socda waa aragtiyada ugu waaweyn ee lagu sharaxayo jacaylka iyo waxyaalaha dareenka ah ee ku lamaan. Ciwaanka: ka helidda iyo jacaylka. Dhakhtarka ku takhasusay cilmi nafsiga Seth Robin wuxuu soo jeediyey in jacaylka romantic wuxuu ka kooban yahay 3 arrimood: 1 isku xirnaan, 2 daryeel, 3 isu soo dhowaansho. Robin wuxuu aaminsan yahay in mararka qaar ay dadku dareemaan farxad iyo mahadin ballaaran. Qofku wuxuu jeclaanayaa in uu waqti badan la qaato oo uusan ka fogaanin qofka uu jecel yahay, balse taas ma noqon karto jacayl. Mararka qaar arrintaas waxay noqon kartaa ka helid. Sida uu sheegay Robin, jacaylka wuxuu ka qoto dheer yahay sidaa, wuuna ka xamaasad badan yahay. Waxaa qayb ka ah rabitaan iyo isu soo dhowaansho jir ahaaneed iyo xiriir. Dadka iska hela waxay isla qaataan waqti, balse kuwa isjecel way isdaryeelaan, waxayna isu buuxiyaan baahidooda. Isku xirnaanta dhanka qalbiga waa rabitaanka ah daryeel, is-ogolaansho iyo isu soo dhowaansho. Waa qiimeynta aragtida iyo farxadda qofka kale iyo wadaagidda dareenka qalbiga. Jacaylka u samaysan sida taayarka ama shaaga gaariga. Buug la qoray sanadii 1973 oo magaciisu ahaa Midabka Jacaylka oo uu qoray John Lee oo cilmi nafsi ku takhasusay, wuxuu ku sheegay jacaylka midabka taayarka. Wuxuu jacaylka ku sheegay in uu leeyahay 3 midab oo aasaas ah. Waa kuwan: Number 1, Eros waa erey ka yimid luqadda Greek, micnihiisuna waa xamaasad ama kacsanaan. Lee wuxuu sheegay in jacaylku uu yahay mid jir ahaaneed iyo mid dareen. Number 2, Ludos waa erey kale oo Greek ah oo micnihiisu yahay ciyaaraha gameka. Waa arrin ah xanuun iyo farxad, balse aan halis ahayn. Dadka isu qaba jacaylka noocan ah go'aan wanaagsan ma lahan, waxayna walwal ka qabaan isu soo dhowaanshahooda. Number 3, Storge mar kale waa erey Greek ah oo micnihiisu yahay kalgacayl dabiici ah. Kani waa jacaylka dhex mara waalidiinta iyo carruurtooda iyo carruurta ay sii dhalaan. Sidoo kale waa jacayl u dhexeeya saaxiibada. Aragtida jacaylka 3 geesoodka ah. Dhakhtarka cilmi nafsiga ku takhasusay Robert Sternberg wuxuu sheegay in jacaylka 3 geesoodka ah uu ka kooban yahay 3 arrimood oo isku xiran: 1 isku soo dhowaansho, 2 xamaasad, 3 ka go'naansho fulinta ballanqaadka. Isku darka 3dan arrimood waxay dhalisaa noocyo kala duwan oo jacayl ah. Tusaale ahaan, isku darka go'aanka iyo isku soo dhowaanshaha waxaa ka dhasha jacaylka naxariista ah, halka isku darka xamaasadda iyo isku soo dhowaanshaha uu ka dhasho romantic love.